بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. محمد بلقوي عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك، حدانا أنك كوسو لهن حق، حدانا أنك كوسو لهن دينت يا محمد. الله أكبر. dadka qaar baa maanta waxay isku malayaan hanuunka ilaahay uu siiyey iyo dhadhanka ay dareemayaan iyo xijaabada ay xiran yihiin iyo garka weyn iyo khamiisyada iyo quraanka akhrinayaan in ay tahay margaya jaloota, yacni aniga waxaan dhan la imid, aniga ayaa maxaan ku dhahaa maasha allah, yacni aniga ayaa kasbaday. laakiin ilaahay waa uu nafinaya, wuxuu leeyahay walowlaa an thabbatnaaka, haddaanan ahayn annaga kuba ku sugaya laqad kidta tarkanu ilayhim shay-an qaliila, yacni gaadaad u iilan lahayd istiqaamadan iyo nuurkan waad ka bixi lahayd. markaasaa idan la adaqnaaka dicfa alxayaat, markaasaan aakhire iyo adduunba wadicfa almamaat, adduunka iyo aakhiraba lagu ciqaabi lahaa buu leeyahy maxamed. ilaahi subxana taala ku leeyahay, waxaa la yidhi axad ka mid a culimmadii fuqahadii imaamu shaafici oo la oran jiray abu isxaaq ashiraazi oo noolaa sanadkii 393 xiliyadaa noolaa, ayaa soo dhalinyaro ah ayaa waxa uu yidhi habeenada ka mid a ayaa waxaan la dhafray aabbahay, sahartu maca abii, wuxuu leeyahay waxaan la sahray oo aan la soo jeeday aabbahay habeenada ka mid ah. meesha aan kula soo jeedaya aabbahayna waa la horday buu yidhi markaa iyada ah. marka aniga aabbahay aan qiyaameel u kacanay oo anwaartii iyo nuurkii aan daaranay oo maasha allah khayraadkii iyo cibaadkii aan dhex galnay, ayaa wuxuu dadkii kale waxaan arkay buu yidhi bustaha iyo barkinta ku wada hoos jira. markaas waxaan ku yidhi aabbo, dadkan ayaga ma kacayaan miya? ayaga aabbo, dadkan ayaga ilaahay inta usoo istaagaan ma tukanaan miya? markaasa aabbahay baa wuxuu ugu yidhi buu yidhi aabbo, inaad caawo seexataa kaaga khayr badnayd inaad ereygaa tiraahdo, inaad caawo soo kicin ayaa kaaga sharaf badnayd oo kaaga khayr badnayd inaad ku dhacdo xuquuqda iyo dadka muslimiinta ee hurdo aad xamato. who are you marka aad leedahay dadkan may kacaan, may qiyaamalka u kacaan, aabba maxay u hurdaan? inaad saa tiraahdo ood ka sheekayso inaadan tukanin baa caawo kuu dhaantay ood khuuriso, dembigaad ku dhacday macnaha. markaas wuxuu ku yidhi aabba, ilaahay istiqaamada uu ku siiyey right iyo awood kuu siin mayso in ummadda kale aad ku xadgudubto. haddaad xijaabo waaweyn qabto xaq, macnaha xaq boolis ma tihid, xaq uma lihid. haddaad khamiis iyo gar weylada xaq kuuma sinaya khamiiskaasi garkaasi in ummadda kale aad ku eegto nadratu istisqaar, inaad yaraysato ood dhaylasato ood xamato oo aad caydo oo waxarta aad ku tiraahdo maadaama adigu aad masaajidka aad aado. ilaahay adiga right kuuma siinin, stamp iyo shaabad laguma saarin aad ummadda kabaha kula dulmarto. no, awooddaa ma lihid. keliyata waxaa tahay qof ilaahay subxaanahu watacaala minna iyo sharaf xaggiisa ku sii basaa tahay, laakiin right iyo xuquuq iyo awood laguma siinin inaad ummadda kale aad ka hadasho ama aad xamato ama aad yaraysato. markaasaa wuxuu intaa usii raaciyo ku yidhi aabbo, ilaahay subxaanahu watacaala quluubta waxay ku jirtaa gacmaha ilaahay, asbic min asaabici araxmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa, sidii raba u gadgadinayaa. booska maanta aad taagan tahay adigu waxaa laga yaabaa inaad booska aad bari isaga aad istaagto, adna uu kani booskaaga soo istaagay. in badanna way dhacday, in badanna way dhacdo. fanaan toobadkanaan aragnay iyo sheekh ummadda laayo oo waxaan ku iri danta xoolahooda dhaca oo waxaan ku iri dhibaatooyin waan aragnay. yacni qof diin lagu tuhmi jiray oo cilmi iyo nuur lagu tuhmi jiray oo kala wareegtaan aragnay, iyo qof baatil lagu tuhmi jiray oo xaqa soo kale waanu aragnay. marka ilaahay baa subxaana watacaala gadgadiyey ee mar walba waxaad tidhahdaa ilaahayow istiqaamay iyo thabaat igu sii, ilaahayow nuurkan iyo khayraadkan ha iga qaadan, ilaahayow booskan ha iga tuuridhe. markaasaa wuxuu usii raaciyo haddana uu ku yidhi yaa abi, aabahaygiyo dadka ahlu macaasida ah ilaahay subxaanahu watacaala ayaa hanuunsiin karaya, ilaahay subxaanahu watacaala baa boos sargeyn karaya, adigana in lagaa aqbalay in kale ilaahay baa og. waxa uu leeyahay cumar ibn cabdulcasiis, salafkii hore umaysan arki jirin daacada, cibaadada iyo salaada iyo soonka umaysan arki jirin. dadkii hore
يعني وحوها عمر بن عبد العزيز أحد مد كميدا خلفاء إسلام كإشانات وحقول لي هاي ذاتك هو السلف ومثلا أرك جرين عبادته إن أي تهي صون إيه صلاة فربضن ولكن وحو أرك جرين بل وحو أرك جرين بقول له ذاتك مسلمين تأعراض وذا إن أن لو دعم بيو أرك جرين بقول له محايا لقف كادو صلاة بدن إيه عبادة بدن بدن ولي ما دوقفك أسجأه ما أنتم بالقيم نقولنا مفلس قفا وحبهيسن ولكن إله سبحانه وتعالى اسكح جل شأنه ومدنا أمان سئل لباتده حياك الله وبياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.